tegay magaalo la yahay Gebagebo oo ku taal dhinaca bariga oo Burco u jirta ilaa 140 kilomitir meel la yahay barkada Cali Xirsi marka meesha macdan baa laga qotaa bana lagu dadka reer miyiga ugu yiraahdeen annaguna dad marka bilow baan ahayn waxay ahayd 95kii markii dagaalka soo Burco laga soo noqday meeshii baan u tagnay waan soo eegnay waxba marka wax qalaba aan sidanay waxba toona ma jirin laakiin dadkii adigu reer miyiga deegaanka waxay noo sheegeen in meeshan diyaarada timaado waxaankaasa dabeedna adigu waan iska soo noqonay Burcaan ku soo noqonay Booramaan imi islaan aladina la oran jiro Trianaheeda Boorama lagu dilay oo dhakhtarka Boorama haysatay ayaan arintii uga sheekeeyay ku risaasada jirta islaantii waxay tiri waan tageynaa meeshii horta balkeliga ku noqday ku tiro waan ku noqday situationka soo eego soo sug warqadna ay keen meeshii baan tagay adigu dhaqamaan ka soo qaaday ereyadii laakiin ay lahaayeen halkaas ay nimanku galaan maanaan gaadhin oo aan ka baqanay dabeedna waxay ii sheegeen nin rii ka gashay waxari ka gashay meesha ay sheegay inuu meesha quraarad weyn baan ku arkay quraarad weyn sayto markaa xuli waxa loo dhisay buu kaabad baa loo dhisay dabeedna kaabadii dul saarantay quraaradaas oo intaad arkayseen oo maalinta diyaaradu timi dabadeed baan anigu arkay bahashaas meesha taala dabeedna waxaan mooday buu wax buurta ku samaysan ilaahay markaa reer waan garanay anagu waxaan in wax qof meeshan qalab la dhigtay ay tahay marka alaliina soo kaxaynay waanu geynay meeshii markaan meeshii geynay alaliina waxay tiri habqina kubada ka bahashan kabaha lagu talo winterka baalkan la gundiska waxa inta lagu talo taab doobin weyn bay sidataa dabeedna dhaxday ku xidhatay meeshu waxay leedahay waa hog weyn oo qaba qoyseen oo in door gudihiisu jiraan marka wadiiqooyin baa ka leexda hawada ku qadin gelinaysa ka guuxaysa ayaa ku baqdin gelinayaba iyadoo way iska sii gashay adigu waxbaar markay socotay ay qudheedii baqatay dadna xarig bay noo raxday nool dibadda uu soo jeeday ma gudihiiba hore sii gashay laakiin meeshii doonayna inay gaadho may gaadhin adigu baashana waa 100 mitir duntan markeeda hore waa 100 mitir inta ay socotay gabigeedba ma bay noqon 90 mitir 80 mitir ba may noqon way baqatay markii iyaduna way meesha bahalaa joogan anaga ku aragnay in kasto bahalaas hoosaani waxba naga qaadeen laakiin waxaan ka baqaynay waxa ay guuxan iyo waxan waxa jooga masas waaweyn baa jooga waxa joogta masxagale baashan abis lagu leeyahay la yiraahdo waxa jooga oo kale bahalkan la yiraahdo feedmeerta oo madow oo ku dhirbaaxaysa yaa way meesha waa madow marka adigu dab la gasho ilaa qori ololiyad sidataay oo leedku ka baqtiya tooshku ka baqtiya wax walba ka gubanaya laakiin jawaankan aad afka qoriga kaga duubtay ayaa ku baxaya wax kale kuma baxayaan ka markay aragto dibadda ku dhirbaaxaysa way ka baqtiinaysa marka adigu meeshii sidaas ay noqotay mar damaan ku noqonay annagu kaliya saddex nin baan ahayn marka radiation bay beereen radioactive ay kadinka ku beereen way waxay haystaan GPS bay haystaan meesha wixii gelaya ay arkayaan oo waxbay dhigteen meesha qalab iyagu og yihiin bay dhigteen marka already way beereen markay arkeen meeshii in la galay waxay beereen radiation bay beereen radioactive oo waxa la beeray weeyaan oo haddana nimanka anagu markii aan ognahay in waxaan radiation yihiin waanu qaban kari lahayn waxaan soo qaadi lahayn oo kaliya xabad garaad dheer baan ku dhufan lahayn uu qarxi lahaa roof testiga hore saas lagu qarxin jiray radiationka marka ma aanan ka filaynin waxaan ka maqnay laba week may gaaraynin kadib meeshii saddex nin baan ahayn anu markii horta indhaha xanuunay isha say la iga bilaabay nina dhinaca paralysis ku noqday nina wuu suuxay koomuga saddexdeeda baan u socnaa anu dhaxdan ku jiray labada dhinacyada iga xigeen radiation labada dhinac buu badnaa inankaas koomu galay waan qsidsan ku qaaday inankan paralysis isla markiiba lugtay gacanta say gariirayay buu yiri anigana ishaasa bidix baa la iga bilaabay qodax la iga muday marka saddexdeeda dib baan u dhacnay marka wuu qarxay markaan dib u dhacnay wuu qarxay halkaas ayna ka bilaabantay xanuunka soo noqday aduu jimba ku jira baba midba jimba la hadlaya baba waqti kasta soo maray aduu dhakhtar baan u tagay dhakhtaradina waxba anfici waayeen wadaadkan maxamed sheekh ismaaciil oo reer Burco ahaa marka Burco joogay baan u tagay wuxuu waxaan waa radiation cabdi sax kugu dhacay marka dhakhtar tag kan Nairobi baan tagay intan Boorama ayaan ugu tagay dhakhtar ka yimaada ku hospital oo Nairobi kuwa igu Nairobi aan wax ka qabanayna kaalay Nairobi aan ugu tagay
marka naagtii dhakhtarada ahayd ee meesha haysta professorka ahayd baa tidhi inankan waxba kama qaban karo indhihiisa wax laga qaban karo ha way dhaawacmeen indhihiisa shabaga oo dhan baa dhintay bay tiri waxba kama qaban karo imaaraadka waan tegey waxba kama qaban karo bay yidhaahdeen akhritaankii 2007 ayaa carruurteedii islaantu ay kaxeeyeen Sweden sidii baan Sweden ku tegey Sweden waxay yidhaahdeen mid baa igu yidhi wax baan kaa qaban karnaa haddaan ishan qalliin ku samayno midigta tan horta already waxba ka qaban karmayno waa laga saarayaa buu yidhaahday tan midigtaan qalliinku haddaan ku samayno wax baan ka qaban karnaa qalliinkii garanti wuxuu na siiyey aniga ciyaalkayga wuxuu na siiyey warqad ah inuu 60% aan arkayo haddii qalliinkaan samayno ballan qaad ah dabeedna adigu markii qalliinka sameeyo waxba way arki way wax ma arki sameeyo waxba arki maayo sidii bay shii